haddaad aragto gabadhii aad furtay oo aad si kadiisa meel iskaga hor imaataan ayadoo maasha Allah ah, ayadoo dhisan, labisan, quruxsan, faraxsan, nadiif ah, kama dhigna inay nin kale raadinayso ee waxay ka dhigan tahay adigu inaad ahayd najaas quruna. markii horeba nadiif bay ahayd gabadhan aad qabtay, markii horeba waa quruxsanayd, laakiin waa arka weyne maadan arag. markaad kala tagteen baad aragtay waad sii shidan tahay. saan ma inaad ahayd ma malaynayn way ahayd. hadhihin markaa ha u malayn oo nadaafadu iimaankay ka mid tahay dee maya, taas ma ahan baabka hadda kuma jirto. ma ahan saas inay isu nadiifinayso. awalba nadiif bay ahayd, laakiin adaan arag. ilaahay dadka qaar ma tuso nimcada markay haystaan, laakiin markay farahooda ka baxdo bay qoomameeyaan. walaa taxiina manaas. marka adaan arkin markii hore quruxdeeda iyo nadaafadeeda, laakiin hadda markaad aragtay iyadoo taagan, iyadoo dhisan, quruxsan, maasha Allah, calaa khayr, hadhihin Allah nin kale raadinaysa hadda u labisita maya. wallah arooska kale iyo ninka kale ama haweeneyda kale xataa hadduu nin yahay haweeneydan furay, ilaahay bay arrintu la xiriirtaa qadarkiisa iyo xukunkiisa. laakiin qofkaani hadda waxaad ka horwareejisay bariijkaadii xumaa ee rafaadka iyo dhibaatada ahaa. haddays ogaatay, wayba is ogaataba gabadhan haddays aragtay. marka waxay ka turjumaysaa adigu in ahayd nin qurana oo aan nimcada alla siiya arag, laakiin hadda arkaya. hadda mise maxaa gacan kuugu jira?